بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين halkan waxaan ka gelaynaa casharkii afaraad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ee suuratulbaqara markii ilaahay uu soo sheegay kuwii qur-aanka taxadinahayay oo munaafiqiinta iyo gaalada ahaa naarta looga digay baa sidoo kaleeto waxaa ilaahay la xiriiriyey muslimiintan dadka muuminiinta ah oo iimaankooda ka run sheegayna ishaarada ay leeyihiin faqaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wabashir waxaad ka farxisaayo oo war faraxle aad u sheegtaayood u bishaaraysaa aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey wacamiluu sameeyeenna assaalixaati acmaal wan wanaagsanna sameeyeen kuwaas u bishaaree anna lahumna ugu bishaaree bianna lahum ayaga inay leeyihiin jannaatin jannooyin inay leeyihiin dhul guryo iyo geeda leh inay leeyihiin dhulkaa geedaha iyo guryaha lahoo tajrii ay soconayso min taxtihaa jannaadka hoosteeda guryahaas iyo geedahaas hoostooda ay soconayaan oo qulqulahayaan al anhaaru webiyaalka biyahooda ay qulqulahayaan jannaadkaasoo haddana kullamaa mar alla mar kastoo rusiquu ayaga la irsaaqo oo qayb la siiyo minhaa jannaadkaas xaggooda markii laga irsaaqo min thamaratin mira xaggooda markii laga irsaaqo min haadii laga bedelo jannaadkaasoo kullamaa mar kasta oo rusiquu ayaga la irsaaqo qayb la siiyo minhaa jannaadkaas xaggoodana laga irsaaqo min thamaratin mira xaggoodna markii laga irsaaqo risqan marsuuqan shay laysku irsaaqo markii laga siiyo jannaadkaas mirahooda qaaluu ay dhahahayaan mar alla mar kasta oo jannaadkaas miraheeda qayb laga siiyo lagu irsaaqo bay qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkaan haddana laku irsaaqay alladii kii mid la mida weeyaan rusiqnaa annagana laku irsaaqay min qablu haatan ka horna laku irsaaqay sababtay saas u leeyihiin waxa weeyuu ilaahay yidhi wa utuu ayagaa loo imaanayaa bihi risqigaasaa loola imaanayaayoo loo keenahayaa mutashaabihan xaalu yahay mid isu eg oo kii hore muuqaalkiisa iyo kanu isu egyihiin loo keeno jannada saasa ilaahay ugu bishaaray walahum waxayna leeyihiin ama sifaad la isku cadfaya ka dhigtidoo jannaadkaasoo walahum ayaga uu haddana ugu sugnaaday fiihaa jannaadka fiigooda uu ugu sugnaaday aswaajun lamaanayaal baa ugu sugnaaday laswaajdaasoo mudaharatun la daahiriyo laga nadiifiyey wix alla wixii la qurumaysto la dhibsadoo dhan wahum ayaguna jannaadkaasoo wahum ayaguna khaaliduuna kuwa ku waaraya ay yihiin oo weligood ku jiraya fiihaa jannaadka fiigoodana weligood ay ku jirayaan jannaadka noocaas loo sifaadkaas le ilaahay ugu bishaaree waxaa la yidhi raaxadu iyo nolosha macaankeedu waxay ku kaamil noqotaa waxa ma'kuulka ah oo la cuno iyo yacni waxa madcuumka adag oo maada ahaan loo isticmaalo maskanka la dego iyo mankaxa iyo nikaaxa markaasaa saddexdii noloshu ku kaamil noqonaysaa ilaahay aayadda ku sheegay wuxuu sheegay maskankii waa jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar madcuumkii iyo wixii kaloo arsaaqad ahaabaa lagu sheegay kullamaa rusiquu ilaa aakhirkeeda walahum fiihaa aswaajun mudahara xaggii nikaaxana waa lagu sheegay intaasaa u dhammaystiran nicmadu markii laakiin ay kuu hagaagto
cabsida keliya oo qofka ku soo hadhaa waxa weeyaan armay kuu sii socon weydaa markaasuu taana ilaahay ka baabi'iyo oo yidhi wahum fiihaa khaaliduun waana ku waara ina allaha laa yastaxyii an yadriba masalan markii ilaahay masalkaa uu soo sameeyey lasoo sheegay oo munaafiqiintii lagu shabahay masalka loogu sameeyey haddana qur'aankii inuu mucjiz yahay lasoo sugay oo ayagii la cajiz geliyo asagoo kaleeta la imaada la yidhi ayna la imaan waayeen bay waxay u jeesteen munaafiqiintii iyo mushrikiintii iyo yuhuuddii saddexda qolaba jiho kale oo qur'aanka ay ku duraan markay la imaan waayeen markaasay waxay ku dureen waxaan qur'aanku uu masalyaalka ahoo wax lagu shabahayo ku jira marna caaro wax lagu shabahayo marna tixsi wax lagu shabahayo marna dab la shitay wax lagu shabahayo wax qof fasaaxaluhu wax uu ku shabahamaa waxaasoo kale waaba la nacaayo waxaasoo kale dadku ma soo qaadaan wax kuma shabahan waa wax liliita marka haddiiba waxaas uu ku shabahay qur'aanku waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen ilaahay xaggiisa inuusan ka imaanay wax asagu uu samaystay uu yahay nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi taas asagoo ilaahay ka jawaabaya buu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yastaxyii kama tegahayo an yadriba inuu ka dhigo masalan wax lagu shabaho oo tusaale loo soo qaato inuu ka dhigo maa shay inuu ka dhigo shaygaasoo bacuudatan kaneeca ah famaa iyo shaygii ah fawqahaa kaneeca ka sii sarreeyo oo yaraanta uu liito uga sii sarreeya sidii janaaxa bacuudatin oo axaadiisa nebigu tashbiih ugu soo qaato dhankay ka fiiriyeen maahana shaygu liidnaanta markii laga hadlahayo asnaamta ay caabudayaan inay liidato meesha ugu hoosaysa oo waxaasu ay gaaraan wixii muujin kara baa un lagu shabahaya waxay rabaan ha ahaadeen ilaahay ka tegin faama aladiina markaa kadib masalan maa bacuudatan famaa fawqahaa waxa ka koreeya oo ka weynan badan waa la dhihi karaa sidii kaneecada waxaa ka weynan badan cankabuudkii caaradii iyo waxaa kaleetoo ka weynan badan dubaabkii iyo taxsigii markaa jir ahaan wixii ka weynan badan ama famaa fawqahaa iyo kaneecadaa wixii ka sii hooseeyo oo ka sii koreeyo xagga liidnaanta uga sii koreeyo sidii janaaxa bacuudatin oo kaleeto oo meelaha nebigu ku shabahay qaarkood faama aladiina haddaba mar haddaan bayaankaas waxa caddayntooda iyo xikmadooda aan marna la daynayno ilaahay uusan cidna uga baqaynin faama aladiina dadkii markasaanay u qaybsamayaan masalkaas la kulmay faama aladiina kuwii miyaa buu ilaahay yidhi aamanuu alla rumeeyeen fayaclamuuna kuwaasu waxay yaqiininayaan ogaanayaan annahu masalkaasu alxaqu shay sugan oo xaqa inuu yahay oo aan la dafiri karin oo xikmad wato oo meeshiisii dhacay xaqaasoo min rabbihim rabbigooda xaggiisana xaalu xaqaasu ka ahaaday rabbigii ayaga barbaariyey oo fahankooda soo korinhayay oo miisaal yar oo ay wax ku fahmi karaan shay maxsuus ah oo ay fahmi karaan wixii macquulka aha ugu shabahay shayguna markii lagugu shabaho wax maxsuusa baad aad u fahamtaa waama aladiina kuwii miyaa kafaruu gaaloobeen oo nicmada ilaahay siiyey qarinahayeen waxdaaniyada ilaahay inkirayeen nebinimada inkirayeen umuurta aakhira inkirayeen fayaquuluuna ayagu waxay leeyihiin maa shaygee buu daakii yahay araadahu ilaahay u jeedo bihaadaa kan uu ula jeedo masalan masal iyo wax ku shabahitaan xaggiisana ugula jeedaa maxay tahay war waxaanoo kale yacni waa su'aal yasitaana bal waxaanoo kale muxuu ula jeedaa saasay leeyihin waa xaqirayaan ilaahay baa u jawaabo wuxuu yidhi yudilu ilaahay wuxuu ku dhuminayaa bihi masalkan wuxuu ku dhuminayaa kasiiran kuwa badan buu xaqa ilaahay uga dhuminayaa oo masalkan markii lagu shabaho wax oo ay yasaan baa inay dhumeen ka imaanaysa ilaahay baa dhuminayo oo waddo ay ku dhumaan ugu yeerihaya macnihi wayahdii ilaahay wuxuu ku hanuuninahayaa bihi masalkan kasiiran
kuwa badan buu ku hanuuninahayaayoo mu'miniinta ah saa markay mathalkaas arkaan bay intay ogaadaan wacdigii ilaahay xaggiisa wax ka soo fulay khabar ilaahay ka soo fulay inuu yaho yaqiin ah bay xikmadiisa baarahayaanoo waa hanuunayaan wamaa yudillu ilaahayna kuma dhuminayo bihi mathalkaa kuma dhuminayo ila alfaasiqiina kuwa faasiqiina waxaan ahayn markuu ilaahay yidhi kuwa badan baa ku dhumaya kuwa badanna way ku hanuuninayaa ilaahay kuwa lagu dhuminahayo mathalkaas markay arkaan aan xikmad u qaadanayna ka hor imaanahayaa sifaadkii leeyihiin baa ilaahay sheegay kow ilaahay wuxuu yidhi wamaa yudillu bihi mathalkaa ilaahay ku dhumin mahayo ila alfaasiqiina kuwii faasiqiinta ahaayoo daacadii ilaahay ka baxay amarka ilaahay ka baxay kuwaas kuwa aan ahayn horta ilaahay ku dhumin mahayo aladiina kuwa weliba faasiqiinta ah oo sifaadkan lahoo yanquduuna burinahayaan furfurahayaan cahdallaahi ilaahay ballankiisii uu ayaga la ballamay kitaabahoodii hore kula ballamay inay nebiga suuban rumeeyaan kuwa burinhayo furfurahayaan min bacdi miisaaqihi cahdigaas adkayntii la adkeeyey dabadeedna weliba burinhayaan markii lagu adkeeyey oo ambiyadoodii kala dardaarantay ama adilo ilaahay uu ogo caqliga lagu garan karo lagula adkeeyey kadib bayna burinahayaan wayaqdacuuna goynahayaanna kuwaasu maa shaygii bay goynayaan amara allaahu ilaahay uu amray bihi shaygaas uu amray an yuusala bian yuusala ka bedel in la xiriiriyo ilaahay uu amray bay goynayaan oo nebiga in la rumeeyaa qaraabadii ah iyo wixii la midka haba wayufsiduuna fasaadinahayaanoo hallow dhex keenahayaanna fil ardi dhulka dhexdiisana hallow iyo inuu nidaamkii dhulku ka baxo keena dhexdiisa dhigahayaan macaasi kuwa sifaadkaas leh ayaa ballankaas ayaa masalkaas wuxuu yidhi ilaahay waa ku dhumaya oo ilaahay ku dhuminaya oo markaa waa munaafiqiintii ulaa'ika buu yidhi ilaahay kuwaas iyo kayrkood basan soo sheegnay ulaa'ika kuwa sifooyinkaa ku sifaysano hum ayaga uunbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah kuwa waxay ay haysteen oo awal ay kasbeen dhumiyey oo khasaaray khasaaradii waa waxaad haysatay oo kaa dhumay kuwa waxay haysteen dhumiyeen oo khasaaray waa kuwaas acmaal bay sameeyeen hadday ahlu kitaab ahaayeen hadday kuwa kaleta ahaayeen munaafiqiinaha acmaal daahira hay samaynahayeen waxna ka faa'idi mahayaan kayfa takfuruuna billaahi ilaahay marka halkan wuxuu nooga sheegayaa nicmooyin markuu ilaahay soo sheegay tawxiidkii ilaahay waxdaaniyadiisa markii aayadii hore lagu soo qariray yaa ayuhannaasu ucbuduu rabbakum lagu soo xujiyey nebiga suuban risaaladiisa in la sugo in kuntum fii raybin mima nazalnaa markaa kadib bacsigii iyo aakhiradii lasoo shugay oo uciddat lilkaafiriinna naartii la yidhi muuminiintiina la yidhi wabashir aladiina aamanuu intaa kadib baa ilaahay halkan wuxuu ku keenahayaa oo ku sharxahayaa nicmooyinka dadka dhan caamka ah oo u galay nicmooyinkaasoo keenahaya inaan ilaahay aysan ku gaaloobinin markaasaa lagu ceebaynahayaa inay gaaloobeen ayagoo intaasoo nicmo haysta nicmooyinkaas caamka ah waa 4 marka midda koobaad oo halkan laga bilaabay waa 4 yacni inta aayaduhu sharxeen ilaa laga gaarahayo yaa bani israa'iilada midda koobaad waxa weeyaan abuurida qofka la abuuro nolol la siiyo waa nicmada koobaad ugu weyn markaasuu ilaahay wuxuu yidhi kayfa sidee adinkoo ah baa takfuruuna ku gaaloobaysaan billaahi ilaahay ku gaaloobaysaan xaaladee xaal aad ku sugan tihiin baa takfuruuna billaah ilaahay ku gaaloobaysaan kayfadii waa iyadu waa istifaam oo xaal iyo baa la isku weydiiyaa sifada istifaam ha ahaatee laakiin waa xaalo oo takfuruuna waawul jamaacadaasay ka xaalaysantahay haddaan marka idhaahdo kayfa takfuruuna see u gaaloobaysaan seedii waxaan su-aashii iyo kayfiyadii baan macneeyey laakiin shaygay ku xirnayd oo sifada u ahayd kayfiyadaas baana sheegay kayfa sidee adinkoo ku sugan baa takfuruuna gaaloobaysaan adinku marka aad gaaloobaysaan bal intaa caqligiina ku noqotaan xaaladda aad ku sugnaan ka dhaanbar sheega oo xaaladdaas inaad gaalowdaan ay munaasab noqon karto xaalad aad cayrtiin miyaa gaaloobaysaan alla u baahan tihiin
xaalad aad hodantiin miyaad gaaloobaysaan nicmadiisa inaad ku shukrisaan baa la rabaa bal xaaladda munaasab u ah inaad ku sugnaataan marka aad gaaloobaysaan sheega yacni ma jidha wey istifaamtii waa istifhaam ceebayn ah iyo tawbiiq ah kayfa sidee xaal aad ku sugan tihiin adinkoo ku sugan baa takfuruuna billaahi ilaahay ku gaaloobi kardhaa walxaal kuntum aad ahaydeen haatan ka hor noloshiinnan adduunyada ka hor amwaatan kuwa dhintay adinkoo ahaadeen amwaatan taas waxaa laga wadaayo mufasiriintu intooda badan u badinahayaan sidaanu haddaba sheegahayo intaa duudiyaalka aad ku jidheen aabbayaalka inanba calool gelinoo inanba noolaanba noloshaanba ina soo gaarin oo ina calooshaba gelinoo noloshii nafti aan laynku afuufin markaas meyd ma la dhahaa shay jamaada dhagax halkaas yaala meyd ma la dhahaa meyd waxaa la dhahaa ciddii nolol u horeysay kadibna dhimashada ay ku timi marka waa tashbiih haddii saa lagu fasiro wuxuu noqonayaa walxaal kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa dhintay oo kaleeta aad ahaydeen oon ruux lahayn oo waa markaad ku jidheen duudka aabbayaalkiin intaad ku jidheennan ilmasidaha hooyadaba ina ku wareegin faaxyaakum markaa haddiiba ilaahay haddana inin nooleeyey oo arxaamtii baa laydinku nooleeyey caloolihii hooyada iyo adduunyada uma dabadeed muddo kadibna yumiitukum ilaahay uu ini dilahayo uma dabadeed muddo kadibna markay ajaashiinni dhammaataad dhimanaysaan uma dabadeed muddo kadibna yuxyiikum ilaahay ina soo saarahayo inuu noolaynahayo bilbacthi soo saarada inuu ku noolay uma dabadeedna muddo kadib baa turjacuuna layni soo celinayaa ilayhi ilaahay xaggiisaa layni soo celinahayaayoo meelaan cid ilaahay wax la maamulayo muuqdaa aysan jirin mar kastaba ilaahay baa wax maamulaya saas idinku xaalkiinu yahay xaalad munaasab inii ahood ilaahay ku gaalowdaan markaas maleh huwa buu yidhi ilaahay alladii kii weeyaan nicmadii labaad baa markaas haddana muxuu ahaaye loo gudbay oo ah samaawaadka iyo ardada iyo inta u dhexleh la abuuro tartiibtii ugu munaasabsanayd baana qur'aanka ilaahay markuu ku sharxahayay arrintan ku keena saa qofka nicmo soo marta horta noloshiisa kow ka ah ciddii nool baa dhul iyo cir iyo arsaaq ku taalla ku intifaacda kadibna tana xigta markaasuu ilaahay yidhi huwa ilaahay alladii kii waa un ilaahay keliya khalaqa abuuray lakum adinka daraaddiinna u abuuray maa wax alla wixii fil ardi dhulka ku sugnaayoo dhan buu dartiin u abuuray jamiican dhammaanna xaalay yihiin waxaa dhulka ku sugan wax alla waxaa dhulka ku sugan buu inii abuuray midaad ku intifaacdaan iyo midaad ku cibro qaadataan uma dabadeed istawaa ilaahay wuu qastoo iraadadiisii waxay ku tacalluqday ila samaa'i samadii baa ilaahay u qastay oo iraadadiisi ku tacalluqday fasawaa ilaahay wuu taam yeelay hunna samooyinkaa soo socdoo 7 ah wuu taam yeelay 7 samaawaatin samooyin oo 7 buuna taam yeelay sidii rubbahu rajulan iyo darabtuhu zaydan oo kale damiirku shay ka dambeeyanahay uu noqdo kala laga وهو إلهينا عليم إلهي ومد أق بكل شيء وحكستنا إلهي وأقيه وحكستا إلهي علمي سكو تعلقه مد الله بعض أسقو إلهي نعمدان إني قلي وحالله واحد لك كتيرو دندرتي نو أبوري نوع ربان هذينه سقا شرح دون صوبته وحكمة قارنا والقو وانا قارنا والقو انتفاع فسواهن مركاسو ثم استوى إلى السماء سمادي بو قصدي قصد إلى السماء بو قصدي وقصدي محيطها وتعال إرادة سكو تعالى إنها هاتا إلى حيطان فسواهن على السماء على صور شيء مفرد سواهن ضمير كينا وجمع السجا شرح دون لكن وحاكم ده حيابها إن أقواش كوش ده 7 كدم بيسين لعين 7 سماوات با إلهي كتاميال عد ضوح أبو ريسا وعد أقوان تيضو كما ضمبيس إيجوكتو شيء جملة يتفصيل بولا صبتا سادر تيضبو مركو إلهي خلق شيغو سوعرن وشيغو بابضنا بعلمي إلهي الحريرية وهو إلهينا عليم بكل شيء شيء كستا مد إلهي أقويان وبشر الذين آمنوا وبشر وحيري بشارة داس آية دا مركي بشارة دا ميشي دا اللي يراهدو
waxaa ku tacalluqaysa su'aalo yacni ama arrimo oo saddexa. midda koobaad waxa weeyaan bishaaro maxay tahay? bishaaradu wuxuu yidhi awalu khabarin min khayrin, waa kitaabkan yacni aan hayno. war ku soo gaara kan ugu horreeyo oo weliba khayra wey, ama shar a qolaa tiri laakiin taasu ashma. haddii shar laga wado fabashirhum bicadaabin oo kale iyo waa in la qaydo. laakiin mar haddii la ilaaqo bishaaree la yidhaahdo waa war khayr leh oo ku farxad gelinaya. haddana marka koobaad oo warkaas lagu sheega kusoo gaara waa arato bishaara qofku ku leeyahay bilkhayr baad leedahay, waa war cusub hadduu iskuu sheegin oo ku yidhaha saasaa dhacday war waa maqlaad leedahay. bishaaradu marka waa warka koobaad ugu horreeya. saa darteed bay fuqahadu waxay yidhaahdeen buu yidhi hadduu yidhaahdo addoommahayga midkii ii bishaareeya oo hebel soo gelitaankiisa iigu bishaareeya waa xor, midka ugu horreeya oo u sheega waa xoroobaya. kii labaad ma xoroobaya, saa bishaaro maahana warka hor buu yahay. hadduu laakiin yidhaahdo midkii ii warramo addoommahayga ka mida kan ugu hor baa xor ah, kii ii warramaa xora, mid kastoo warka u sheegaaba waa xorooba. waxaa marka halkaa looga soo qaatayna minal basharati baa laga soo qaatay qofka jirkiisa gibilkiisaa kore, saa qofku markuu farxo jirkiisay ka muuqanaysa. midda labaaduna waxa weeyaan buu yidhi halkee bay ku cadfan tahay waa bashirti ilaa waa xarfu cadafi. fain lam tafcaluu madmuunkeeda cadfun calaa madmuuni aayati fain lam tafcaluu aayaddaas macnaheedii bay ku cadfan tahay. war cadaabka iska ilaaliya ku dheh, muslimiintana u bishaareeya, muuminiintana u bishaareeya. yaa cidda wax bishaaraynaysaa weeye su-aasha saddexaad oo ku jira. bashirtu waa amar cid mucayana miyaa lala khidaabayaa mise waa khidaab caam ah? waa imaa damiiru rasuuli weeyaan calayhi salaatu wasalaam, nebiga suuban baa la leeyahay u bishaaree awal waadix. wa imaa kullu man tasixu minhu lbishaaratu, ama cid kastoo ay bishaaradu ka xasili kadho baa loo jeedaa ka culamaa'i lmuslimiin oo kale. taasaana caam ah oo in lagu xambaaro ay roon tahay bay qaarkood. waxaa marka ugu bishaaraysaa kuwa ilaahay rumeeya wa camilu saalixaati min alfuruudi wannawaafili, sunnooyin iyo faradba camalyaalkaa sameeyey. anna basharadii waxay ku tacadisaa ba xarfu jira, anna bianna lahum jannaatin inay leeyihiin. jannaadkii markuu fasirayey wuxuu yidhi xadaa'iqa inay leeyihiin dhul aseendooyin ahoo beero geedo waaweyn leh. xadaa'iqdaasoo daata shajarin geedo iyo masaakiina meelo la dega intaba u saaxiib ah. kelimadaas marka janna kelimadaas waxay uun asalkeedu isugu tegahayaa waa asturitaan. janno leylu habeenkii baa mugdiyoobay waa asturmay. junna wuu waashay, haddii qofkii waashay caqligii baa tegoo asturmay. janiin waa ilmaha caloosha ku jira oo uurjiifka ah, calooshiibuu ku asturan yahay. maadadu halkaasi ku wada socda. marka jannaatintu ayadu waxa weeye jannatin oo la jamciyey. jannatin waa mufrad, waa masdarkii marada ahaa. faclatun sidii jalsatun oo kale. macnaheedu asalka wuxuu ahaa jannatun hal asturitaan ah. halkii asturitaan baa markaas intii la jamciyey, maadaama jannooyinka aakhire ay badan yihiin, dabaqooyinna kala leeyihiin baa la jamciyey. macnihii asalka ahaayoo luqada uu ku faa'iidayn jirana wuu wataa oo ahaa hal asturitaan ah. yacni geedaha intay isku baxeen buu marka soo baxay oo isku tafmeen bay hal mara waxa asturayaan oo meel muxuu ahaaye caad ah iyo meel dayacan midna aan la arkaynin. macnuhu halkaas ku socda. jannaadkaasoo tajrii ay qulqulayso, jaryigu waa qulqulitaanka, min taxtihaa ay taxta ashjaariha wa qusuuriha, daaraheeda iyo muxuu ahaaye geedaheeda. qusuurtu waa isla masaakintii, tafanun hadba cibaaro hor allah ba ku keenaya. alanhaaru nahriga waxaa la yidhaahdaa waa meesha qodan lafteeda. marka yaa meeshii qodnayd oo biyuhu marahayeen miyaa lafteeda soconaysa dhulka ahayd? maya, ayilmiyaahu fiiha, biyihii baa ku dhex soconaya. markaasuu ku yidhi wannahru waa almawdicu aladii yajri fiihi almaau, nahrigu waa meesha biyuhu ay ku qulqulaan. lianna almaaa waxaana saas loogu magacaabay biyaha yanharuhu ee yaxfiruhu qodob. wa isnaaduloo jaryigu nahrigu marka waa qoditaanka xaggiisa kasoo jeeda, saa daraaddeed baa nahrigu u yahay. wa isnaadul jaryi ilayhi, in qulqulka asaga loo tiiriyaana majaazun weeye, sa asagu ma qulqulahayee meeshii qodnayda waxaa qulqulaya waa biyaha. laakiin hadda ka hor waa anagii soo baraarujinay oo markii shayga meeshuu xaqa asal ahaan u lahaa laga leexiyo, kii baa laga wadaa uu xaqa u lahaa. laakiin sababta wax cibaarada kale loo cabiray baa xikmad ku jira.
xikmadda marka maanta ku jiri kadhaa waxa weeye mar la go'aamin karo oo ilaahay xikamtiisa cidna ma koobi kadhee waxay ka mid noqon kadhaa markii webiga makaanka marka shayga loo tiiriyo intii laga duwo ciddii waxa samaynaysay baa makaankii loo tiiriyey wuxuu noqonayaa ficilkaas in lagu xeel dheeraado oo masalan see loogu xeel dheeraado makaankoo dhan buu camimay bay noqonaysaa haddii biyuhu marka ay webiga ku dhex socdaa ay biyo yar yihiin oo webiga ka gees qararhkiisoo dhan aan wada qarinaynin webigii baa loo tiirinaya biyihii laftooda loo tiirinaya haddii laakiin asaga dhan ay wada camimaan asagaa loo tiirin karaa saa meel kastoo ka mida qulqulkii waa ka jiraya waa biyo marka buux dhaafay oo macnihii soo baxa nahrinkii marka waa nahrin haadana waa la kordhigaa waana la reebaa labadaba waa kaa ku yidhi yajuuzu fiihi fatxu lhaa wa sukuunuhaa labaduba waa ku bannaan yihiin wakadaa kullu maa caynuhu xarfun xalqiyun shay kasta oo saddexdaa xaraf ka kooban oo cayntiisa xarfu xalqi uu ku jirana waa wada tagto laakiin haddii la reebo yujmacu calaa anhur nahrin anhurin faclin afcul baa lagu jamciya marka la kordhigana nahr la yidhaahdana yujmacu calaa anhaarin baa lagu jamciya midkan marka maanta noogu jira sharxu markuu ku sharxayo wannaharu baad dhahaysa ilaa an anhaar oo jamacii ah baa nahr lahaa jannaadkaas marka ilaahay wuxuu ku sifeeyey sifooyin oo 4 ah midda koobaad waxa weeyaan kullamaa jannaadkaasoo kullamaa rusuquu mar kastoo ayaga la irsaaqo minhaa jannaadka laga irsaaqo udcimuu la quudiyo min tilka aljannaati jannooyinka laga quudiyo min thamaratin mira laga quudiyo ka bedel mintiina waa ibtidihi labadaba midii ibtidaa alqaaya risqan marzuuqan shay lagu irsaaqay oo lagu aadiyo qof kastaaba lagu khasisay la quudiyo qaalu waxay leeyihiin haadaa midkan waa kii la quudinayo hadda loo keenay ka horna waxbaa loo keenay alladii waa kii rusiqnaa annaga nalaku irsaaqay rusiqnaahu min qabl hor nalaku irsaaqay kii hor lagugu irsaaqay waaba tegeyba kaas kii laftiisa miyuu kanu noqon karaa marka la soo ceshay marka saa daraaddeed buu mithlu la soo qadaraya haadaa kanu mithlu alladii kii oo kale weeyaan rusiqnaa nalaku irsaaqay min qablu kan hortiisa nalaku soo irsaaqay oo kale weeyaan qabludaas marka maxaa laga wadaa laba ra'yi baa ku jira qolo waxay leeyihiin isla wixii midkan haddana laku irsaaqahayo goorna la siiyey oo jannadana laku siiyey dhexeeda buu la mid yahay waa ka uu jalaalku maroo yidhi qablahu fi ljannati xagga jannada hortiis baana laku irsaaqay litashaabuhu thimaariha miraheeda isu ekaanta isu eg yihiin bay saa u dhahayaan biqariinati wa utuubihidaasaana ku tusinayso ra'yiga kaleetana wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa wixii hadda ka horna laku irsaaqay jannada dhexeedana laku irsaaqi jiray uu egyahay iyo adduunyadaba wixii aan laku irsaaqi jiray taasuu egyahay ra'yigaasaana weliba rajxan bay leeyihin sababtuna waxa weeyaan kullamaa baa la isticmaalay kullamaadiina takraar bay tusinaysaa mar kasta oo loo keeno kii hore ula ekaanahaya waana ka dhadhan dugnaanahaya markaas kastana su-aashaanay keenayaan mar kastadii u fiirsa maxaa soo gelahaya marka ugu horeyso jannada ay tagaan oo la irsaaqo baa mar kasta ka mid noqonaysa marka ugu horeysa marka su-aasha ay leeyihiin kanu wuxuu la mid yahay kii hadda ka horna laku irsaaqay janno ma noqon karo sababa kii ugu horeeyaan waa mid ka horeeya markii adduunyada inuu noqdo marka ugu horeysa su-aasha taasay marka rajaxaya tafsiirka midda labaad marka qofku waxaa la shayga markuu hor u yaqaano hor markuu qofku shayga u arki jiray haddii loo keeno hadda wuu arkahayaayo kama didhaya laakiin wuxuuse arki jirin waa taqaana qofka haddii loo keeno wuu ka dida meeshiina meel did taalla ma ahan marka waa shaygay adduunyada ku arki jireen baa mid kastaa u egyahay sidai axaadiistu caddaynaysay oo wax kastaaba waa u egyihiin laakiin waa ka duwan wautuu sababtu ilaahay sheegay marka waa lool ayagii baa bihi loo keenay utuu ayagaa bihi jii'uu waxaa loola yimid birisqi bihidaa risqiga yani u noqonaysa mutashaabihan xaalu yahay risqu mid isu eg yushbihu bacduhu qaarkiisu xaaluu bacdan u egyahay lownan midabka ugu egyahay wayakhtalifu dacman xagga dhadhankana uu kala duwan taasuna waa midka wuxuu yidhi shayga xalaawadiisa ugu daran oo waxaa la ogyahay buu yidhi inuu dhadhanka isaga ekaado waxba iyadu hadda gooniya midabka isaga ekaadee wa inama almaziyatu fihi tashaabihu dacm in la yidhahdo inuu dhadhankii iskhilaafo asagoo midabkiina kala duwan waa shay hadda kayru caadiya waa la arki karaa inuu maziye leeyahay saa darteed can alxasan waxaa laga wariyey ana axadahum yuutaa bisaxfa
حيرا لوكينيا محوها يضبق وكله فيأكل منها وكعنيا ثم يؤتى بأخرى متكلا لوكين فيراها وحو ملينيا مثل الأولى إن تأتي هركل مركاسو وحو ليهي هذا الذي رزقنا من قبل كي هرأها فتقول الملائكة وحي لاذهي اللون واحد مذبك اسكم مده وضعم مختلف وحال وري أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه يري والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة يتناول ثمرة مربو قادنا ليأكلها سوء فما هي واصلة إلى فيه مجاريسه أفكيس حتى يبدل الله مكانها مثلها أيضا كلا من يرين يربي عصبنا ولهم بوير إلهي وحا أصنادي فيها وصفدي لبادو لغلا سفيي فيها وحا أصنادي جندوينك أزواج لما نيال أو من الحور قبلها عدعدو إنها واوين إيو وغيرها إيو غير كيود أهو كوي الدنيا دا هوري ويل نحو أحاي إلهي كسو أبو أزواج تاسوا جمع زوج مركا محويها وما يكون معه آخر شيء متكليت ولجر ولا معي فيقال زوج للرجل والمرأة انت بوالا دحا ومنين تينا والا اسكو سو جمعي marka wuxuu noqonayaa azwaaj bay ku leeyihiin haday rag yihiin azwaaj bay ku leeyihiin haday dumar yihiin azwaaj bay ku leeyihiin labadiiba markaa azwaajdaas oo mudahharatun la daahiriyay haday haweentahay min al hayd iyo wa kulli qadarin wax kasta oo la qurumaysto oo la dhibsado oo min an-nisaa haweenka xaggooda ka yimaado wayudamu min ahwaalihinna oo xaalooyinkooda wixii la dhibsado dhan baa markaas bimacnaa annahunna munazzahaatun can dhalika laga nazahay مبرآت منه ولغا فوغيه بحيث لا يعرض ذلك لهن وما سودرين wax ku iimaanaya on arag iskhilaaf iyo xumaan kale tay min ay sakajin ragi iyo dumarkii وهم يغون خالدون جنات كاسو وهم يغو خالدون فيها جنات كي ay ku waarahayaan maakisuuna ku nagaanayaan abadan weligood bay ku nagaanayaan la yafnawna ma baabahayaan ayagu yeesan baabiina wala yukhrijuna lagama soo saarahayo khuluudku waxa weeyaan buu yiri macnihiisu waxa laga wadaa buu yiri waa طويل طول المدة مدة dhirki khaalidku macnihiisu waa saaluqada carbeed waxa taa ku tusinahaya meelaha qaarkood abadan in lagu darayo haduu khaalidku yahay waa waaritaan weligood ahada abadantu takraar bay noqon lahayd macna hor Allah ma keentay marka waa muddo dheer bay ku jirahayaan laakiin maanta abadan inuu ku fasiro waa meelo kale waxa laga faa'iideystay ونزل marka waxa dagay buu yiri la radan ka jawaabi daraadeeda waxa u dagay liqowli yahuudi laga jawaabayo lama daraba Allahu al-mathala markii ilaahay uu ka dhigay mathal markii ilaahay sameeyay bidubaabi tahsina ilaahay mathal ku sameeyay fi qowlihi uu kula sameeyay wa in yaslubhum ad-dubaabu hadii tahsigu asnaamta caabudayaan shay'an wax ka sibto kama badbaadsan karaan والعنكبوتنا إلهي وتشبيه كسمية يما وحكو شبهتان في قوله عارضي كمثل العنكبوت عارض وكلو يام عابدي با وحي هذين ما أراد الله بذكر هذه الأشياء وحيابها الخصيصة اللي ذاتا هاي إلهي شيقتان كذا كودي وحمرك إلهي عجيز كيون ما أهم بيده مركز محادقي إن الله بادقي ونزل فاعل في سدي عن شرف إذا مركز هذا الكاس راح يساع waxa weeyaan waa munaafiqiintii waa yahuudi iyo midkan la yiraahdo mushrikiinta intaba yahuuda inay yihiin aayadana ku muujinayso min bacdi miithaaqihi ba ilaahay ballankay burinayaan ugu la ballan markii la adkeeyay kadib waa dad hore loola soo ballamay oo kitaab soo lahaa way taa ka muuqanaysa inay mushrikiinta iyo munaafiqiinta yihiin suuratul mudaththir aayadeedii baa markaas ayana tusinaysa waliyartaaba alladina fi qulubihim marad tasmiishi marka waa saddexda qolob markaasuu ilaahay wuxuu yiri in allaha ilaahay la yastahi horta al istihyaa'u wa al hayaa'u xishood baa luqada lagu yiraahdaa asalkeeda yani maadada macnihiisuna wuxuu noqdaa xagga luqada waa taqayyur isbedel wankisaar niyad jab oo yactar insaan qofka ku yimaada qofka inuu si xoogaa isu galo oo isbedelo xoogaa niyad xumo ku timaado min khawfi ma yu'aabu bihi waxa lagu ceebayo ka baqitaan uu ka baqayo shoodka horta waa wuxuuna ka yimid ishtiqaaquhu min al-hayaati nolosha xageedu ka yimid oo nolosha iyo xishoodkii maxaa iska saameynaya oo naqasad hayaatuhu wa'talat markii qofkii xishood galo
habkuu rabay inuu u noolaado adigu bal fiiri isbedel ma ku yimid wuxuu rabay waxa inuu ku dhiirto waa isla qumanaa wixii baa lagu ceebeeyey waa iskaasiray wixii waa uu ka gambaday qaabkuu rabay inuu u noolaado nuqsaan baa ku timid marka waa xayaatada bay kelimadii ka soo jeedaa marka macnaha noocaasuhu ilaahay ma lagu sifayn karaa markaas kadib habe laga anfiyey ma lagu sifayn karaa istixyaa niyad jab kow isbedel siduu rabay ay wax u noqon waayaan macnahaas ilaahay marka horeba laguma sifayo saa daraaddeed waxaa laga wadaa sida uu ku fasiri doono waxa ka imaan doona natiijada ka dhalata haddii uu qofka xishood ku yimaado wixii uu ka niyad jabo oo lagu ceebiyo maxaa natiijada ka soo baxa waa ka tagaa soomaan farwa ka qaadaa taa ilaahay ma samayn in allaha laa yastaxyii an yadriba darabadii marna hal mafcuulay u tacadisaa oo bayana bay markaan lagu fasiraa daraba kadaa oo kaleeto midaan bayaankaa tii garaacidda ahayn maaha ama laba mafcuul bay qaadanaysaa afcaalu tasyiirkii bay noqonaysaa tii labada mafcuul buu ka dhigayoo wuxuu yidhi an yadriba yajcala inuu ilaahay yeelo kama tegayo masalan masalka iyo waxyaabaha wax lagu shabaho waa mafcuulun awal maa shay inuu ka dhigo oo mafcuulkii labaada waa nakiratun mawsuufatun bimaa bacdahaa baa lagu sifeeyo bacuudantaa sifa u ah mafcuulun thaanina weeyaan ay aya masalin kaana masalku ku raba ha noqdo baa markaa laga wadaa an yadriba inuu ilaahay masalan waxa wax lagu shabaho maa shay inuu ka dhigo ilaahay kama tegahayo kama baqanayo kow ama waa zaa'iduu yidhi waa maadii lita'kiidi alkhisati liidnaanta adkaynteeda bayna u sugnaatay famaa bacdahaa waxa ka dambeeya markaas oo bacuudatanta ah baa almafcuulu thaani mafcuulkii labaadkaasaa marka ah oo markaa kuu noqonaya in allaha laa yastaxyii an yadriba ilaahay inuu ka dhigo masalan waxyaabaha wax lagu tashbiihiyo wax lagugu sawiro wax lagugu fahansiiyo inuu ilaahay ka dhigo maa mathalun ah kuu raba ha ahaadee bay noqonaysaa bacuudatan inuu ka dhigo masalan maa mathal alla mathalkuu rabo oo wax lagu shabaho bacuudatan inuu kaneeca ilaahay ka dhigo taas ilaahay kama tegahayo ziyaadada marka la sheegahayaa waxaa laga wadaa waxbay ta'kiidinaysaa ee quraankii wax zaa'ida lagama helo waaba hanuun isaga dhanba bacuudatan waa mufradulbacuudi wahuwa siqaaru lbaqi waxaa baqiga la yidhaahdo waa mideeda yararkaa buu yidhi yaashaa boodda oo injir boodada la yidhahdkeeda yararka kutaanta mideeda yaryar wey iyo famaa fawqahaa ayadana wuxuu yidhi baasha abuuritaankeedu waa wax yaab leh sida ilaahay yacni u abuuray baasha وهو من عجيب خلق الله تعالى بو كمد هي وير فإنه في غاية الصغر يرانتا كما دنبيس بو كجوغا وله 6 أرجل لحلقود بو ليه و4 أجنحة هي قربة وأفر ذيب بو ليه سين خرطوم رون بو ليه هي مجوفا هذا ساسو تاي غدها كبحسن oo sida toobada waxa ugu jiraa shaygu haduu dhimciisa isaysto awood leh wa huwa ma'a siqarihi dhuuntaasu yaraanta uu yar yahay baalkaas kaneecada baa yaquusu khurdumuhu dhuuntiisaasu waxay dhex tiimbanaysaa fi jildil fiil maroodiga haragiisa wal jaamuus iyo lookinsiga harageeday dhex gelaysaa iyo wal jamal ratiga haragiisa fayabluqu minhu alghaayata wuxuu ka gaarayaa kama dambaysta xanuunka xataa in aljamala yamuut ilaa uu neefka ratigu min qarsatii qaniyadiisa uu dhinto xayawaanka noocaas waa wax markay wax yaab laho isbiisu yaab iyo famaa fawqahaa iyo wixii ka sii koreeyo oo ay akbara minhaa ka weyn xagga jirka uga weyn markaa wuxuu noqonayaa sidii dubaabkii cankabuudkii ama fawqahaa xagga liinaanta ugu hooseeyo ka janaaxi bacuudata faama laa yatruku waa kaa yidhi yastaxyiidii buu fasirahayaa bayaanahu shaygaa la caddayntiisa ilaahay ka tegi mahayo limaa fiihi min alxikami waxa ku sugan oo xikmooyinka daraaddeed buuse uga tegey فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل كوي مركا مؤمنين تا مثل كسؤال حق الثابت شيء سغنو الواقع موقعه ماشي صدعين يهوى أغانيا من ربهم ربي قود حقي سنة حالو كأهاده ربي بالعبر عليه النعمة كسو برباريو فهن كودا سوكريو انتو وحي معقول كها وح محسوسة وشبهي حقي سنة كأهاده ويفهمي وقالك waxaa kaaga muuqanaysa in mathalka baahida loo qabo
buu halkaa ku tusinayaa qur-aanku ugu muujinayaa oo ah shayga hadduu macquul lagu sheego haddii lagu yidhaahdo qofkaasu waa qof geesi ah iyo haddii lagu yidhaahdo waa libaax oo kaleeto laba sawir baad ka kala helaysaa kii hore midka xoog badan amthaalshaasu markaasuu xayn buu ka sheegayaa waxaa ka mida buu yidhi amthaalshaasu midka wuxuu yidhi la yidhaahduu yidhi baashan wuxuu yidhi shinnida ah ama taxsiga ah baa waxay samaysay buu yidhi waxay ku dhacday kanicada baa wuxuu yidhi geed caaliye ah safxada 133 juzga 2 midkan tafsiirul kabiir bay geed wuxuu yidhi geed timireed aad u dheer bay ku degatay markaasay waxay doontay buu yidhi inay ku shabahan yani tashbiihay ka wadaan qof aan lagaba warhayn asaguna meeshu isla jooga aad la yaabaysa waxay doontay an tadiira canha inay ka haado waxaa rabta kanicadii geed timireedkii weynaayo fuushay markaasay waxay tiri yaa haadihi istamsikina isceli bay ku tiri buu yidhi geed timireedkii fa innii uriidu an adiira inaan haado baan rabaaye faqaalat innakhlatu waxay tiri wallaahi maa shacartu biwuquuciki dhicitaanka awar i kortay baanaba dareemin fakayfa ashcuru bidayanaaniki haadidaada markiisay u dareemaa kahaadida waxa laga taga iyo in lagu degto kee xoog badan degashada xoog badan tii horaanaba ka warhayn tirtanka xoog sidii wuxuu yidhi wuxuu kaloo ku shabahay bi nabi ciise malakuutu samaa samada milkigeedu wuxuu ku shabahuu yidhi nin beer qaatay nabi ciise kula shabahay towraadkiisa injiilkiisa nin baa tuuluu beertay buu yidhi sarreen buu ka beeray aad u fiican markay dadkii seexdeen baa cadow yimid buu yidhi wuxuu ku dhex beeray zuwaanka waxa la yidhaahdo oo naq sumaysan oon fiicnayn buu xindadii ku dhex beeray cadow markii uu beertii ay soo baxday miro uu yeeshay baa waxaa carradii qabsaday naqii sumaysnaa oo ku dhex jiray ninkii wax beertay addoomihiisii baa waxay yidhaahdeen wixii aad beertay soo ma ahayn qamadi nadiif ah oo tuulada ku beerta way ahaayeen buu yidhi halkee buu zuwaankaanu ka yimi bay yidhaahdeen haddeer wuxuu yidhi haddii aad damacdaan inaan jarna yidhaahdeen haddaad damacdaan zuwaankan inaad jartaan iyo qashinkan ka dhex baxay hadda xindadii baa la jarmayso marka faraha ka qaadu ha koreen markii ay xilligii la goosan lahaa gaareen buu wuxuu yidhi isu daayey inta zuwaanka gooni u jara inta kalena gooni u jara inta zuwaanka intaa umaaga ka dhigtaan isku xirxira dab ku guba xindadiina khazaa'inta iyo meelihii aan u diyaarinoo hagaagsanay noo geliyo مثلkaasuu marka nebigu fasiro wuxuu yidhi nabi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wacalaa saa'ir alambiyaa walmursaliina wuxuu yidhi ninka la sheegayo xindada abuuray waa abulbashari waa bini aadanka aabihiisa nebi aadan weeya wixii hadda meeshii awlaadda ka soo jeeda tuulada la sheegayana waa caalamkii dhulkii xindada jayidadahuna waa dadka ilaahay adeecay midda kaleetana waa kuwii macaasida aan sheegaya cadowga ku beerana waa ibliis kuwa yidhi aan waxaan kala qabanana waa malaa'igtii farahay marka halaga qaado ilaah yidhaah loo kaadiyo markii xilligooda la gaaro geerida ay tahay midna aan naartayda ku gubo midna aan meeshaan u diyaariyey aan geeyo وأما الذين كفروا كوي قالوا بيم يا أبو إلهي فيقولون ماذا أراد الله إلهي محو بهذا مثلا كان أولئك تمييز ويان أي بهذا المثل محو لكذا كان مثل أهان محالة قوضة يعني واستفهام تاسونا واستفهام تاس يعني حوقات حقير كتير وما دي واستفهام إنكار وكاس واستفهام إنكار ومبتدأ ويا وحا قوضة ما أهين مناسب يعني ما أهين بكور وذادين بمعنى الذي ويان بصلته مع صلته حال ذاد يهيب خبره الذي خبر كيس يهيب منتي ماذي خبر كذا يهيب أي فائدة با فيه كسوا قال الله تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا هو بدن بلا كل عن الحق لكفرهم به إن يكون قالوا بان بوغد منه إضلال كي ما إلهي باقوي ريضون عليه لكن مركي مثل كي لا عديه كهر مانيا ثم بعد يوبين مركي ويهدي به كثيرا كوا بدن إلهي وكهنون يا من المؤمنين أهل تصديقهم به إن مثل كرميين وما يضل به إلهي مركا وحو شاقي كو كل من صفات كلمة
كوا إلهي كما دمي إلى الفاسقين كوي كبحي الخارجين عن طاعته أو فسقه وكلمة أصل كيدي فسقوا بحي فسوقا بحيتان فسقت الرطبة مرتي الرطب كاهيد باب بحضو قلفتي كسو بحضي بكلمة أصنان لو اسمها فواسق بالي هذا سيدا كوا تشيرك iyo hangaralaha ay ka mid yihiin waa kuwa noocii xayawaanka la midka ka baxayo dib u taagan marka aan daacati bay ka baxeenoo dunuubtaas ay marka koreen wuxuuna leeyahay buu yiri fusuuqaas 3 darajo mid waxa weeyaan marar buu sameeynaya mustaqbihan laha asagoo fool xumaysan haatan ay sala qumanay ka labaad waa an ihmaaku fiha in lagu mamanaado bilaa mubaalaatin biha idan loo aabayeelin كصدحنا والجحود إن بالله إنكروا بأن يرتكبها وإنكر كسيه هو سمينا يا مستصوبا لها أسقو وما تسنى هي وحلق من كرجية ولا بق من توبنا يسنى يبا فهو كافر كاس خارج عن الإيمان كواس إلهي سيسي في الذين وانعت ينقضون عهد الله بيبورنا يان ما عهده إليهم وحي إلهي لبلا في الكتب من الإيمان بمحمد كتبت وكل بلا مو إن بقى لهم إياه oo ahdiga waxa la yiraahdaa marka hore waxa loo isticmaalaa ahdiga waa yustaaru lahu alhabl xariga waa la dhahaa naqdigu marka ballankii baa waxa lagu shabahayaa shay meesha ka go'an baa lagu shabahayaa oo xarig ah ballankii la kala galay tacaahudkii waxa la isla ogaa waxaana ku tusina naqdigu waa furfurida timihii baa tidcan biyaa rabta inaa ku meelatid waxay ku leeyihiin fuqahada yajibu naqduhu hadaan biisi kale ku gaaraynin inaad burisid yani inaad furfurtid timihii macnaha waajib markaasaa waxaa laga soo qaaday ballankiibaa waxaa lagu shabahayaa xarig la adkeeyey daaqada intii la isaga sameeyey la isku adkeeyey waxaa macnahaasu ka imaanaya ballan adag buu macnihi min bacdi miisaaqihi ballankii la adkayntiisa tawkiidihi ballankaa calayhim lagu adkeeyey wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi ballankaasu marka laba shayba waa noqon karaa baa la yidhi inay tahay kuwa kitaabii horeetaa lagula ballamo markaas wuxuu aada arrintu ku khaas noqonaysaa yuhuudi iyo wixii la midka ahaa iyo in laga wado xujajtii caqli ahaan baa ilaahay caqli buu siiyey waxay ku fakeraan buu siiyey ballan buu ku qabtay oo ah inay aayadihiisa ay ku fakeraan markaasna caan bay noqonaysaa wayaqdacuuna goynayaana maa shaygii amara allaahu bihi ilaahay uu amray an yuusala in la xiriiriyo uu amray oo min aliimaani rumayna binnabiyi la rumeeya warraximi iyo qaraabadii buu ku leeyahay waxaasuna iimaanida ku cadfaysa iimaanka nabiga la rumeeyaa waxa la samray warraxim iyo qaraabadan waxaas in la xiriiraysa غير ذلك هي مسلمين تينيس اسقين ولا حريران waxyaabaha soo dhan baa soo galay wa antina badalun min damiiri bihi damiir kida badal kata bihi buu ilaahay amray shaygaas an yusala in la xiriiriyo ويفسدون في الارض بفسادين بالمعاصي وتعويق من عن الايمان لغا منعيه كفسادين اولئك الموصوفون بما ذكر kuwa waxa lagu sifeeyay humul khasiruuna ayaga weeyaan kuwa khasaaray oo waxay ay wixii gacantooda ku baxay meesha ka baxeen aan waxna ka faa'iido limasirihim ila an-nar al-mu'abbadati naartii la abadeeyo waligeed ahayd inay u noqdeen darteed bayna la khasaaray ila waaga darteed buu wuxuu yiri baali arabi' ibn anas taabicigaasa wuxuu yiri dadka munaafiqiinta ah ilaa munaafiqiintii la soo sheegay oo مثلك يسيسي markii ay qalabada haystaan 6 shay bay muujistaan buu yiri markii ay san qalabada haysanna 3 shay bay muujistaan 6 shay mid waxa weeyaan ballankii adkaayo galeen heshiisay dad la galay inay ka baxaan mar hadduu guusha helo sida adduunka hadda ka jiro oo kaleeto ballanu inta la fuliyo waa inta qofku tabaryay waxay goynayaan wixii ilaahay amray in la xiriiriyo qaraabadii goynayaan waxay goynayaan ardadana waa fasaadinayaan waa 3 iyo saddexdii caadiga ahayd oo munaafiq caan ku ahaa haday sheekeynayaan bay been sheegayaan haday qof wax ballan la galaan bay ballankii yabawhi uga baxayaan hadii wax lagu aaminana waa khiyaan 6daas ay muujistaan markay gacanta wax ku hayaan oo ayagu awood leeyihiin markaysan awood lahayn 3da dambe bay muujistaan kaliya beenta ballan furiyada iyo khiyaanada bay ku mamanaanayaan ulaa'ika buu yiri ilaahay kuwaas al-mawsuufuuna bima dhukira وكوي لسو شيغي هم الخاسرون كيف تكفرون يا أهل مكة لما كوسي وقالوا بيسان وتفسير كصدوق فسري لكن وارن عام هذا بالله وقالوا بيسان كيف للسؤال عن الأحوال والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها الكفر من العسر واليسر والسفر والإقامة والكبر والصغر والعز والذل وغير ذلك
حالد يعني كستا كيف السيدي أدنكو كسوغن با تكفرون قالوا بيسم بالله استفهامتنا والتوبيخ والإنكار فكأنه قال وإنكرتان يعيبين سقول لا ينبغي أن توجد فيكم تلك الصفات صفات كاس إن لإنكهلا مناسب إنه معهن التي يقع عليها الكفر قال نما يكرك يدا كل عكره فلا ينبغي أن يستر منكم الكفر إن قال نما إنكسوا فشا ما بحبون وقد كنتم حالة هيدين سيباد قالوا بيسان نضف أمواتا قوات انتاد هيدين نضفا في الأسلاب ومركا أموات بعد لمد هيدين بمعنى نقنية أما وحا ليري قفك ميتك هذا وركي سعيد مصر هذا القادة أمواتا بعد هيدين وحا لقوضا ضد تشريبين هذا كورا هذا تفسير بالله فأحياكم مركيب إلهي إن النولي يسد فعل مركيب إلهي وإن النولي إلى قفك مركو ضودكي منيدي ويهي منيدي مركي أون لدقو ورعمكي أي قشاء المهك عبور يعني وأنا حالة كله حالة فأحياكم هديب إلهي في الأرحام بين كنو لي المسديالك الدنيا دا وبنفخ الروح فيكم إن روح لنكو أفوف والاستفهام للتعجيب بأصنا دياب قلين من كفرهم قال لماذا اللي اسكا ياب قلين هيو ولي ورب الله يابا مع قيام البرهاني أسقو الدليل قمي أو دليل تسين هيا إنا يسن قالوا بي أو للتوبيخ أما عيبيني عنانا شو ثم يميتكم دبديد إلهي وإن دليا عند انتهاء آجالكم مركي مدوينكم ودماتا ودمشدي أدونكي لدمن ثم يحييكم مركا اسكدبوا إلهي إن نولين يا بالبعث صبحتان بإنكم نولين إن صار ثم إليه دبديد إلهي حقي ساترجعون لين علن تردون بعد البعث لين علن فيجازيكم بأعمالكم أعماشنا إلهيكم أعمال مرنية وحالي مركا tartiibka aayaddan hadda ay ku socoto qaarkood wow baa la iskula casay faadiina maxay keenaysaa wuxuu inay isku dhow yihiin iscaqiibanayaan qaarna waxaa la iskula casay suma oo inay kala fog yihiin waana si waafaqsan xaaladda marka hore oo manida la yahay oo duudka ninka lagu jiro iyo in la nooleeyo caloosha lagu nooleeyo kadibna lagu sii nooleeyo ilaa tartiibu kulli shayin bixasabihi buu ahaaye in adduunyadii lagu sii nooleeya waa xaaladtaa ku dhow laakiin adduunyada ayaan in lagu noolaadaa dhacday geeridu qofka ka daaro uma baa marka lagula cadfay dabadeed muddo kadib buu yumiitukum markii markaas haddii marka lagu fasiro uma yumiitukum dabadeedu ilaahay wuu ini dilayaa uma yuxyiikum maxaa xigta bilbacth soo bixin hadha laysi soo saaro way ka dambaysa dad baa hadda ka hor dhintay welina aan bacsi la gaarin ayana muddo dheer bay ka dambaysa uma ilayhi turjacuuna kadib baa ilaahay laynii celinayaa سؤال با إيمان كدو عذاب القبر أسقو ميي هذا ميشان هدان لغو شيغين ميلا كاليتو ويكو عادي هاري لي أما ما هاني وحاول دي كرا ثم يحييكم تاسا وحال قوضا عذاب القبر ونقو كرا سببتو وحانا وليبا تسين كرا لي إن لجزمنا يماهن ثم إليه ترجعون ثم أتيدا نولين تلايس نور سو نولي يعودن بي مركي لدينتو هدي لغو فسيرو ميدا مركي ليس صوبحنا ليس سو نولين هايو celinta ilaahay la isu celiyaa muddo dheer uma jira taas waa isku dhow marka midda ay kala fog yihiin waa nolosha qabriga taas waaba noqon kartaa wa qaala ilaahay wuxuu yidhi daliilan xaalu yahay ilaahay mid tusinaya cala albacsi bacsigii mid u daliilinahaya daliil u samaynaya lamaa markii ankaruuhu ayagu bacsiga inkireen ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi ay ilarda buu yidhi wamaa fiiha saasuu kuu fasir dhulka iyo waxa ku jiraba ilaahay wuu ina abuuray oo marka ardigii maxaa laga wadaa jihatu sufli dhanka hoose oo dhan baa marka laga wadi karaa jamiican dhammaanta xaalayna tahay baa laynii abuuray waa lasii xoojiyey litantaficuu bihi saad ugu intifaacdaan wa tactabiruu saad ugu waana qaataan oo wax ugu cabirataan intiiba intifaacu noocu rabaan oo macnihii wuxuu ku wadaa waxaa dhulkii ku abuuran dugaag oo kaleeto caqaarib hangaralayaal abeesooyin cibraa ku sugan takhwiifan cabsigelin laysa cabsigeliya ku sugan oo waxay uga sugantaa hadduu arko qayb waxaan ka mida dhibkooda kaana ablaqa fi zajri can ilmacsiya waxaanoo kaleeta aakhira joogaa leh oo ciqaabkaasaa lagu mudan karaa ayagiina wuu arkay soo kuma zajroomi karo sunta ku jidhaa waa nafcun liajli dafci alxayawaanaati almu'diya xayawaanka kaleetoo wax dhibahaya difaacooda iyo qatliha lalaynteeda madeer waxay sheegayeen in dhulkii cayayaanka beeraha cunahaya in loo helay bahalo caro laga soo qaaday oo intii la helay markaas lagu beerahayo meesha
iyagaa ka baabiinayaan waxaas waxaan ahayn ba cuni mahayaan uma stawaa kadib ilaahay wuxuu yidhi wuxuu u qasday bacda khalqi alardi ardada la abuuritaankeeda kadib qasada ila samaa'i maxaa qasadeedu tahay yacni iraadadiisaa ku tacalluqday fasawaahunna markaasuu adamiiru yarjicu ila samaa'i buu u noqonayaa oo samadii waaba mufrada ma dhahaysid buu yidhi li'annahaa ilaan samadaasu la soo sheego ka horaysaa fii macna aljamci jamac macnihiis bay ku sugan tahay jamacii alaayilati samadu ay u sii socotay ilahay jamac ay u sii socotay marka ilahay abuur uu ka dhigay ay sayarahaa wuu ka ahaysiiyey weeyaan kamaa fii aayatin ukhraa sidii ku sugnayd aayad kale faqadaahunna aayadaas sabca samaawatin buu ilaahay ka ahaysiiyey wahuwa bikulli shayin caliimun wax kastana ilaahay waa mid og mujmalan waxaasu xaalu iyo mid la duuduubay wa mufasalan iyo mid la fahfaah falaa tactabiruuna ana alqaadira allaha awoodaa calaa khalqi daalika ibtidaa'an kaas bilowga hore in la abuuro oo samooyinkaas iyo ardadaasa wa huwa acdamu minkum kaasuna adinka uu idinka weyn yahay qaadirun allahaasu mid awooda inuu yahay muweynan fahmaynin calaa icaadatikum adinkana layni soo celintiina layni soo celiyo waid qaala subxaana allah